السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان الكريم. soo dhawaada saaxiibayaal, janaalka naga daawanaysaan waa Fasoon. Janaalkan waxaa ku soo gudbinaa aqoon, dhiirigelin iyo maad. Muuqaalkiina maanta waxaan kula wadaagayaa 5 xirfadood oo haddii aad barati aad dhaqaale joogto aad ka samayn karti. Maanta wadada kaliya aad wax ku heli karti waa xirfad, waayo waa xilligii xirfada. Xirfada koowaad waa video editing-ka. Saaxiibayaal, video editing-ka waa mid ka mid ah xirfadaha ugu muhiimsan xilligan, waayo shirkadaha content creatorska dhammaantood waxay rabaan qof u editor gareeyo muuqaaladooda, waayo qaarkood waqti ayaa ku yar, halka shirkadaha ay u baahan yihiin qof si aad u qurux badan ugu editor gareeyo muuqaaladooda xayeysiinta si ay u soo jiitaan macaamiishooda. Waxaan kula wadaagayaa 2 tool oo kaa saacidaya inaad noqoti video editing-ka, waa CapCut iyo Premiere Pro-ga. Haddii aad labadan si wanaagsan u barati oo xoog u saarti, waxaa noqon doontaa video editing professional ah. Haddii hore aadan u aqoon, hadda waad baran kartaa, weliba si bilaash ah, waayo YouTube-ka ayaa wax walba ka helaysaa, kaliya waqti yar ayuu kaaga baahan yahay inaad samaysid practice si aad u noqoto video editing professional ah. Xirfadda labaad waa graphic design-ka ama nashqadeynta. Nashqadeynta waa xirfad muhiim ah, waayo shirkadaha waxay rabaan qof aqoon iyo khibrad u leh nashqadeynta si uu ugu sameeyo boostiyo aad u qurux badan ee ku soo jiitaan macaamiishooda. Si aad u noqoto nashqadeeye wanaagsan, waxaa u baahantay inaad xooga saartay Canva ama Adobe Illustrator-ka. Canva waxa uu leeyahay mid free ah iyo mid lacag ah. Bishiina khidmadaadii ugu yaraan $11 ayaa la iska qaadaa. Haddii markaas Canva xooga saartay, wuxuu ku siin doonaa template aad u qurux badan, markaasna aad bedelan doontay. Waxaa kula talin doonaa haddii aad tahay qof bilaawe oo raba inaad hadda nashqadeynta barati, waa inaad xooga saartaa Canva, weliba qaybta free ah, si aad wax badan u barati oo template-daas aad isticmaashay. Haddii aad si fiican u barati oo practice badan samaysay, waxaad si xornimo ugu shaqaysan kartaa xirfadan weliba adigoo gurigaaga joogo. Xirfadda saddexaad waa web designing-ka. Xilligan la jooga, ganacsi walba waxa uu u baahan yahay website si ay macaamiisha u soo booqdaan una arkaan adeegyada uu qabto iyo xogaha ku saabsan shirkadda. Sidaas awgeed, shirkaduhu waxay u baahan yihiin qof ka caawiya oo u sameeyo website aad u qurux badan oo qofka macmiilka marka uu soo booqdo oo ku qasbaya in uu joogo oo wax badan ka sii ogaado shirkadda, ugu dambeynna wax ka iibsado ama wax ka dalbado xilligaas. Si aad u baratay xirfaddan, waxaa u baahantay inaad qaadatay kooraska ugu fiican oo ah WordPress-ka, waayo shirkadaha iyo kambaniyada caalamka 70% waxaa lagu dhisay WordPress-ka. WordPress-ka waxaad ka helaysaa isagoo koorsooyin free ah YouTube-ka, waayo xilligan la joogo YouTube-ka ayaa ah jaamacadda ugu weyn ee aad wax si free ah u baran karti. WordPress-ka haddii aad tahay qof af Soomaaliga aad oo ugu fiican, waa ku heli kartaa isagoo af Soomaali ah, waxaan heli kartaa ayagoo Ingiliisha, waana heli kartaa labadaba. Intaanan kula wadaagin labada xirfadood oo kale, waxaan kaa codsanaya inaad janaalka subscribe saarati, like-tana muuqaalka ku taageerti, sidoo kalena muuqaalka aad la wadaagtay saaxiibka ama walaalka. Comments-ka noogu wadaag wixii fikir ah ama su'aal ah, mahadsanidin. Xirfadda afraad waa barashada suuqa forex-ka, waayo suuqa forex-ka waa suuqa labaad ee ugu weyn marka laga soo tago stock market-ka. Suuqa forex-ka maalintii waxaa dhex marta $5.2 trilyan. Si aad u baratay suuqan, waxaa u baahantay inaad basic ka bilowday, weliba wadada saxda ah aad marti. Waxaa jirta cashiro basic ah aan hore ugu diyaariyey oo janalka ku jiro, waxaan kuu dhigayaa qaybta description-ka. Commentiga ugu horeyna bin ayaa ku qaban doonaa. Xirfadda ugu dambeysa waa e-commerce-ga, inaad bilowday ganacsi online ah. Haddii noqon lahayd inaad service bixisi ama product iibsati. Si aad u bilowday e-commerce, waxaa u baahan tahay inaad aqoonta barati oo ah e-commerce-ga wuxuu yahay iyo qaabkii niche-ka loo helo, digital marketing-kiisa, iyo kadibna ID-daad aad haysatay inaad ku samaysay research oo ah inaad wax badan ka ogaatay si aad u bilowday e-commerce-gaaga. E-commerce-ga inaad bilowday, waxaa u baahan tahay inaad website samaysatay, kaasoo kaa saacidaya inaad productiga ama service-kaaga aad ku soo bandhigtay si macaamiisha soo booqanaysa ay u arkaan wax walba oo aad haysay. Sidoo kale, fiiro gaara, dhammaan xirfadahan waxaa ka helaysaa YouTube-ka, weliba kuwa ayagoo af Soomaali ah iyo English ah, waayo xilligan la joogo YouTube-ka waa meesha ugu weyn oo aad ka heli karti cilmi kasta oo aad u baahan tahay ama xirfad kasta oo aad u baahan tahay, weliba adoo ku baranaysa si free ah. Kaliya marka waxaa lagaaga baahan yahay inaad waqti gelisi, saacado kooban inaad gelisi, kadibna cilmigii iyo wixii aad baratay in aad practice ku samaysay. 5 xirfadood waa xirfadaha
ugu muhiimsan ee xilligan la joogo 2024 haddii aad mid ka mid ah xoogga saartay aad lacag ka samayn kartay. waxaan rajaynayaa inaad dhammaantiin ka wada faa'iidaysan doontiin. waxaan ka codsanayaa mar kale inaad janaalka subscribe saartay, liketa iyo shareka iyo commentigana ha ka iloowin muuqaalka. aad umahadsantiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ramadaanul kariim.